horta alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada oo runtii maanta xil aad u culus saaray ina ogolaaday inaan shaqadeeda dawladnimo sii wato anoo markii horeba haystay magacaabidii madaxweynaha ayay maantana codkii siiyeen waxaan aad ugu mahadnaqayaa sida sharafslay xilkaa ii saareen anna waxaan ilaahay ka baryayaa xilkaa culus ummadda isku raacday inaan hoggaanka u noqdo in aan dalka iyo dadka iyo ubadka soo koriya mustaqbalkoodaba ku taariikhda lagu xasuusto aan noqdo bidii oo wax qabtaan rajayna insha Allah NDP 3 gu socdaa runtii maalintan imiday isagoo jooga oo xoogaa ay contractkii la galay dadkii khubaradii ajnabiga ahaa oo laba qof ahaa u dhamaaday ayaan soo gaaray dib baan u bilownay rajo weyn waxaan ka qabaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh bisha November dhamaadkeeda ilaa December inaan soo bandhigi doono buugga oo aad u weyn oo dhammaan sheegaya baahiyaha qaranka oo dhan xagga horumarka runtii go'aanka xukuumaddu qaadateen aad buu fiicnaa 2012 baa la bilaabay kii koowaad ilaa iyo 17 oo 5 sano ahaa koowaad ka labaadna waxa 17 ilaa iyo 22 oo loogu tala galay ka ugu dambeeyana waa kan imika ee 22 ilaa 26 qorshahaas wuxuu ahaa waxaynu horay u barannay in mashruuc yar oo hay'adi wadato ama qof wato ama socdo baa la keeni jiray dabeedna baahida iyo qorshaha iyo taladaba cid baa iska lahayd innaguna waxaan ahayn martisoore dabeedna waxa laga yaabaa meesha ay doonayaan waxay qabanayaanba wax inoo suubada inaan ahaan jirin laakiin muddooyinkan dambe waxaa la isla gartay gobolka iyo degmada iyo deegaamada koobanba in dib loo eego baahidooda dabadeedna dalkii loo sameeyo wax loo yaqaan priority halkee ugu baahi badan maxaynu u baahannahay marka anagu runtii waxaan soo saarnay wax la yiraahdo inay baahida ugu weyn ee dalka haysta ay tahay biyahaas baanu ku baaqnay runtii madaxweynuhu nagu raacay cid kasta nagu raacday oo ah inaynu horta dalka biyo laga dhirshiyo ama biyo la qabto ha noqoto dooxyada ha la qabto ama ha noqoto balayo ha la qodo ama kuwa roobka laga faa'iideysto ama kuwa dhulka hoostiisa ku jira ha la soo saaro dadkeena abaaro badan ayaa ku dhacay marka inaynu u qorsheyno inaynu abaaraha u adkeysan karno ku hortagi karno intaan awoodi karno dabeedna deegaan kasta oo dalka ka tirsanna la qaybiyo dabeedna markaa nidaamka biyaha ama ha noqdaan biyahan qabanay ama kuwa laga soo saaro dhulka hoostiisa noqotay inaynu u soo saarno runtii waanu wadnaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa maalintan soo saarno aynu noqon doono wax lagu farxi doono oo soo baxa bisha December ilaahay idinkiisa cabiraynaa horta waa mashruuca wuu dhamaaday waxaana weeyaan warbixin laga diyaariyay dhibaatooyinka ku habsada waqtiyada abaaraha hablaha ay ahayd baa laga diyaariyay mashruuca markay su'aalahaada ka weydiiyeen hay'ado inaga ah oo xarumahoodu ku yaalaan magaalada Hargeysa qaarkood iyo hay'ado ajnabi ah wada shaqeynayay waraysi bay bixiyeen waraysigaasi ma ahayn wax ku saabsan Soomaaliland oo kaliya waxa la waraystay wadamada Ethiopia waxa wax laga waraystay wadanka Kenya waxa laga waraystay wadanka South Sudan markii ay Soomaaliland marayeen waxay noo sheegeen حتى waxay hablihii la wareysay waxay sheegeen dad rajo ku nool ah oo runtii ka qalbi wanaagsan ummadihii kale oo dhanba anigu waxaan qabaa hablaheena ammaan baaba loo jeediyay iyagaana ammaanta keensaday waxa kamid ahaa laba hablood baa la wareystay inana waxay tiri waxbarashadeedii iskuulka ayaan biyo dhaamis maadaama reerkii abaartimaday roobkina yaraaday maxaa la distance-ka ama intay noo jiro ceelka oo dheer darteed oo ilaa iyo 3 kiiloomitir ayaa 3 jeer maalintii ka soo dhaamiyaabay tiri waxaan rajo ka qabaa maalintuu roobku noo da'o inaan ku noqdo iskuulkeygii inanta kale waxay tiri waan guursaday waxaan rajaynayaa markaan ilaahay isoo kala furo ilmaha umulo inaan mataqaanaa iskuulka ku noqdo marka saasay u warameen sawirada la soo dhigay laakiin waraysigii laga wareystay Ethiopia iyo South Sudan ayaa South Sudan gabadha ka waramaysay oo South African ahayd waxay tiri dadka biyaha iska leh ayaa dumarka qaarkood marka ay habluhu u yimaadaan ta qurux badanna way guursadaan ta kalena
waxaa laga yaabaa inay xiriir hoose la samaystaan saasay yidhaahdeen marka walaal aniga waxaan i khusaynin oo aan kontagiskayga ahayn innaga dalkeenna hor lahawada ku weydiinayay ma qof baa biyaha iskale qofna biyo male waa wax ummadda loo wada qodo la wada wadaago weeyaan marka South Sudan bay ka warrantay gabadha Ethiopia waxay tiri waxa laga yaabaa 7 ama 6 kiiloomitir ceelku noo jiro marka loo dhaqaaqo waxa laga yaabaa hablaha yaryar ee biyaha dhaaminaya in dhexda dhibaato ku timaado marmarka qaarkood niman horaraho dhibaateeyaan ay jiraan marka waa suurtagal laakiin inaga halkeena hablaha baa la wareystay sawirkooda ku dhiganaa darteed ayaa keenay in si khaldan loo fasiro dadkii waxa laga sheegay iyo tafsiirkaaba cidii qortay waan ka heshiinay hay'adihii sawirada bixiyayna waan ka wada hadalnay arrintan waan dhameynay keligay maan gelin waxa galay ciidanka qaranka galay sirdoonka galay waxa galay xeeraarinta gashay booliska galay dhammaan waan u dhannayn dabadeedna xeerar baan ka soo saarnay hay'adihiina saasaan kula hadalnay marka waxaan qabaa arrinkaasi wax aflagaada iyo ceeb iyo xumaan ka dhacay ma jiron annagana cid noogan turid iyo jacayl badan ubadkayaga ma jirto ilaa waxa laga sheegana geeri baanu ku xignaa waan samaynay horta mid baanan xukumi karin midna xukumi karnaa mid lama xukumi karo waxa weeyaan dhaqanka hay'adaha ajnabiga ay leeyihiin inaga dhexdeena waxa laga yaabaa inaan dhaqan leenahay diineed oo islaamnimo oo xajinaya laakiin waxa laga yaabaa hay'adaha gaaladu inay dhaqamo kala wataan waxaanu ku heshiinay marka hay'adaha iyaga xageena naga tirsanaa inay markay hawl qabanayaan kastaba inay noo keenaan si aan uga taxadarno in aanan wax dhibaatay dalkii dadka iyo ubadkeena iyo hablaheena iyo cid kastoo dalkii inay dhibaato ku soo bixin wayna noo qaateen xeerna waan kala qoran